maanta halkan magaalada Dhuusamareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto Amisom oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amisom iyo saraakiil kale wuxuuna daba socday isbuuc ka hor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqashaasna waxay sidii uu kurgeli lahaayeen sida halkan u imaan lahaayeen uu qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxaan ka hadalnay ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay. Waxaan rabnaa ciidamada Amisom inay goobjoog ka noqdaan geedi socodka dib u heshiisiinta inay arkaan in halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah. Marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka reer Galmudug u baaqayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ay amni tahay in la isku haleyn karo haddii Ilaahay mar dhow aan bilaabi doono dib u heshiisiinta sidoo kale maamul dhisida ama doorashooyinka mar dhow gali doono.